kulanti wanaagsan daawadayaal iyo saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadka iyo Toronto oo idinkaga imanaya studio telefishinka caalamiga ee Somali Channel ee magaalada Toronto ee dalka Canada. daawadayaal iyo saaxiibayaal magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. barnaamijka toddobaadka iyo Toronto ayaa haddii Allah awood leh ogolaado waxaanu idinku soo gudbin doonaa falanqayn dheer iyo waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aan la yeelanay mid ka mid ah aqoon-yahanka asal ahaan ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose, garyaqaan Maxamed Abukar Maxamuud oo loo yaqaan Geetano. waxayna waraysigu ku saabsanaan doonaa guud ahaanba dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellada Hoose. studio hayaga ayaa waxaa nagu soo booqday garyaqaan Maxamed Abukar Maxamuud oo loo yaqaan Geetano. wuxuu garyaqaanku ka soo jeedaa gobolka Shabeellada Hoose, waxaana wax ka weydiin doonaa guud ahaanba dagaalada saameeyay dhimasho iyo dhaawac fara badan shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan. garyaqaan Geetano kusoo dhawow telefishinka caalamiga ee Somali Channel barnaamijkiisa toddobaadka iyo Toronto. mahadsanid oo soo dhaweyntan soo dhaweynaysaan waa ku mahadsantihiin. diyaar baan idin ahay wixii su'aalaad weydiinaysaan sidii xaaladda ay tahay idinkugu jawaabi doonaa. garyaqaan sida ay wararku tibaaxayaan gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka soconaya dagaal khasaare badan dhaliyay oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay indhaha ku hayaan. maxaa cusub oo ku soo cusboonaaday dagaalada goobaha ka soconaya? bismillaahi raxmaani raxiim. horta saad u tiri dagaaladan waa socdeen, waxay socdeen ilaa 2 sano ku dhawaad ay socdaan. heerar badan ay soo mareen sababo hab kala gedisan oo loo dagaalamay soo mareen. hadda meesha ay joogto arrinta meesha ay joogto waxaad moodaa inay tahay midii ugu xumeed uguna naxariis darneed uguna foolxun inay hadda mataqaan heerkaas galeen. haddeer dagaaladan oo hadda soo galay waxay bilowdeen bilowgii bishan barakaysan soon oo hadda aan soo galnay bilowgeedii ay bilowdeen. waxyaalo aan hore u jirin yay bilaabeen qolooyinka ku soo duulay gobolka. kow waxay bilaabeen horta ceelishii inay gubaan. 2 markii hore raggay la dagaalamayeen dumarkana inay ku daraan oo mataqaana gabadhii jidka marayso ay xabadda raaciyaan. tii mataqaana maxaa la yiraahdaa xaafadday ugu tagaan ay kufsadaan. haddeer waxaa socdo inay kufsanayaan maalin walba gabdho soomanayso ay kufsanayaan. waxaa kale hadda ay bilaabeen ragga way qabanayaan way xirayaan dabay qabadsiinayaan. kii ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay lambar 50 oday iska ganacsata ah 2 ber ka hor u ahaa. way qabteen way xireen meel bay gelin way ku gubeen dabay qabadsiiyeen. marka arrimaha foolxumadaas hadda yeesheen dagaaladan mataqaanaa hadda waxaa aad iyo aad u adkeynayo haddaan aniga ka fikirnay waxay rabaan dadka inay barakiciyaanbo sideedaba in la barakiciyo wixii meelaha degan. maxaa yeelay number 50 markii hore way gubeen ciidankii dowladaba gubay kii hore ayagana way la socdeen. haddeer way ku soo noqdeen oo meesha xoogay soo xoogeysteen oo mataqaana ciidankii daafacay dib ay u riixeen oo biimaal oo meesha daafacay dib ay u riixeen magaaladii dib u galeen. magaaladii waa laga cararay. waxaa saas oo kale laga cararay tuulada mataqaana maxay oo number 50 ku dhow buushka la yiraahdo. waxaa kaleeta laga baxay tuulada ceel wareego. waxaa kale laga baxay tuulada hareerile. kulli dadkii deganaa deegaankaas iyo tuulooyinkaas waxay galeen baadiyada. haddeer waxaa lagu jiraa xilalkii roobka xagaabaa lagu jiraa. kaneeca dhalatay. dadkii duurkay ku jiraan waxay cunaan ma haystaan, biyo ma haystaan, cun ma haystaan, daabo ma haystaan. dhibaatadaasaa mataqaana marka waxay rabaan inay dadkaas meesha ku dhammaadaan oo meeshaas dadkaas mataqaana ay ku laayaan. intaan su-aashadan waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto inaan ogeysiiyo caalamka inay meesha ka soo socoto maxaa la yiraahdaa xasuuqii ka dhacay Rwanda mid ka daran.
maxaa yeelay kaas rubaanda haddii xabad lagu dhameeyo kuwaan hadda gaaja lagu dhamaynaya hadda gaajay ku dhamaanayaan ilmihii reer Rama Konton kuwii ceel wareegow kuwii buushka kuwii hareeraley duurkay ku jiraan oo daaba male oo biyo male oo cunno male taas waa taa midaan kale maxaa la yiraahdaa dagaalada haddana ku soo darmay waxay sanadii ceelashii la cabi lahay way gubeen asbay ku gubeen oo meeshay qabsadaanba way gubayaan tan kale oo ayadana mataqaana ka sii daran oo hadda mataqaana ayadana ka sii daran waxa way gaadiidkii dadkii mataqaana wax gaarsiin lahay jidkiina way xireen oo meel loo maray male marka arintaasan marka qabartan rabaa in caalamkan ogeysiiyo in xasuuqaas socdo oo hadda dadkan macluulka u dhamaa macluusha u dhamaanayo in wax lala soo gaaro number 50 xamar waxay u jirtaa 50 kilometer waxa lagu soo gaari karaa hal saac lagu soo gaari karaa wariyaasha xamar joogo waxaan ku martaqaadayaa oo aan ka codsanaya inay tagaan number 50 ay indhahooda ku soo arkaan kuwii ka barakacay number 50 xaaladda ay ku sugan yihiin wahagaag halka ay ugu qabo garyaqaan geetana waxaa tahay garyaqaan Soomaaliyeed oo aqoon badan u leh dhibaatada Soomaaliya ka taagan iyo heerarkii kala duwanaa ay soo martay waxaad sheegtay oo aad u bandhigtay caalamka dhibaato aad u weyn oo loo adkeysan karin waxaadna magac dhabaysaa in ay jiraan dad aadan weli cadaynin oo ku soo duulay deegaamada iyaga oo dambiyada dagaal geysanaya yeeyihiin dadkaas waxa weey waa dad horta ma taqaana beelo gobol kale ka soo duulay waa Soomaali oo ma ahan dad ajnabi ma ahan laakiin Soomaali gobol kale ka soo duulay oo gobolkaas aan degin oo raba hadda inay mataqaana si qasbana inay gobolkaas yiraahdaan waa deganahay mise sheegtaan waaba sheegteen laakiin inay xoog ku qabsadaan waa dad gobolada dhexe ka yimid iyo dad kale ay soo duubsadeen ay soo jiiteen horta dadka haddaad weydiisid dadka waa kuwaas dadka iyaga iyo dadkan aad u hadlay sidoo deegaanada degan dagaalkan u dhaxeeyo oo dhibaatada inta la egeystay maxaa sabab u ah in isafgaran waaga iyo dagaaladaas ay dhacaan sabab horta waa badihiin aad bay u badihiin Soomaalida qaarna waa fahamsiin qaarna lama fahamsana waa horta kuwa la fahamsiin waxa way dadkan gobolada dhexe ka yimid beeray qabsadeen deegaankii ay qabsadeen oo gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ka kooban yahay 8 degmo 8 degmo horta ku iga mataqaana xoog ku qabsadeen degmo kasta ayaga mataqaana gudoomiye ka ahaa ilaa waqti dhow dagaaladan ka hor waxay qabsadeen dhaqaalihii gobolka dhan waxay xoog ku qabsadeen beerihii waxay mataqaana dadkii mataqaana ay ka qaadayeen baad ay ku canshuur ay ku magacaabeen canshuur laakiin waa baad marka canshuur dad wax looga qabtaa la iskama qaado waxay mataqaana dadkii u adeegsadaan sidii adoon ay leeyihiin oo kale dad lagu shaqaysanaya iska sii dariyaa beerihii mataqaana ay qabsadeen waxa hadana ka sii daro wabigii hadana mataqaana dadkii ka iibsan jireen laakiin waqtigaas waa waqtigii qablayaasha dagaalka iyo hogaamiyaasha kooxuhu ay ka talin jireen deegaanada iyaga Soomaa waxaad kuwaas waxa ku joogsadeen waa saad u tir laakiin waxa ku joogsan dagaalkan hadda anaga aan bilownay baa joojiyay ilaa anaga dagaalkan aan bilaabin ka hor waa socdeen masiibooyinkaas dhibaatooyinkaas iyo xadgudubkaas way socdeen dagaaladeenan hadda aan bilaabnay ku joogsadeen oo waxa yeelay sidii raba dadka baad kama qaadi karaan oo wabigii mataqaana ma tegi karaan oo beerihii mataqaana ma tegi karaan laakiin dagaaladeenan ka hor way socdeen saasay ku socdeen wahagaag dhibaatada intaa leeg haddii ay jirto dalka Soomaaliyana dagaal sokeeye kadib uu ku heshiiyey mabaadiida federaalka ah oo Soomaali ku heshiisay in xukunka la daadajiyo hoos laga soo dhiso muxuu yahay doorka dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ay ka qaadatay in la joojiyo dagaalada waxaan rabaa inaan wax yar aan raacay maxamed iga raali ah waatan markii hore ku weeray maxaa la yiraahdaa sababaha waa badan yihiin qaarna waa la fahmayaa waa midaas beeraha hadda aan sheegay iga raalaha waan raaciye midda aan dadka fahamsaneen wax weeye in dadka aan soo duulay oo gobolada kale ka yimid inay rabaan oo gobolkan mataqaana ay isku qoraan oo iska dhigaan dad halkaan degan
in mataqaanaa maxaa la yidhaha mustaqbalka soo socdo waa tii la yiray dowladda waa federaal gobol walba ciddii degana mataqaanaa maamulaysa la yiray waxay rabaan inay gobolkan isku qoraan oo ay gobolkan ka dhigtaan gobol ay degan yihiin ay iyaga maamulkiisa mataqaana wada qabsadaan mise ku lahaadaan qayb libaax waxaa rabaa gobolkan inay dhalan rogaan gobolkana la doonaya in la dhalan rogo oo la rabo in laga bedel dadkii deganaa laga kiciyo dadkan cusub inay qabsadaan midaas waa midda u dambeyso oo mataqaana beeraha dadka beeraha unbay rabaan laakiin ujeedada fog waa taas oo la leeyahay gobolkan waa gobol beel hebel dhowr jeeram afka lagu soo dhuftay sababaha la rabay in laisku xiro oo laisku soo curo laisku soo jiido shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose arrintaasaa u weyneyd dadkan gobollada dhexaari ka yimida watay oo rabay inay gobolkan ka dhigaan gobol beeleed beesha ay ka tirsan gobol ay leeyihiin inay ka dhigaan dhowr jeeroo ay ku hadleen hadallo badan ay soo jeedeen odayaashoodii iyo caqiiladoodii ay soo jeedeen waxay gobolkan waa gobol hebel oo dega 80% oo dadkii deganaa waxay ka dhigeen 20% 80% ayagaas ka dhigeen marka waa arrin mataqaana horta ujeedada fog waa taa oo la rabo in looga qayb galo maxaa la yiraahdaa markii federaaliga la gaaro in uu noqdo gobolkan beeshii deganeed gebi ahaanba laga ciribtiro laga wareejiyo oo beel kale la wareegto ujeedada taa weeyo muxuu yahay doorka dowladdu marka way ka gaabisay dowladda doorkeedu way ka gaabisay oo waxay uga gaabisay waxay ahayd kama gaabanin aan ku naqdee laakiin dadki waxay u muuqata inay ka gaabisay dowladda way ka dambaysay arrinta tan lug bay ku leedahay dagaalka ku jirtaa dagaalka way ku jirtaa dowladda dagaalka way ku jirtaa ciidankii dowladda inta ka horan waan sheegay ciidankii dowladdu ahaa kii bishii oo November oo aan soo dhaafnay 17keedii magaalada number 50 xoog ku galay ciidankii ka kiciyay galay burburiyay kadibna gubay arrintaas marageeda waan sheegay wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha u ahaa oo qirtay si cadaan u qirtay waa ku soo celin horan waa sheegay arrintan oo si cadaan u yiri arrintan dhibaatadan ciidanka dowladda geysatay annaga dowlad ahaan magdhabaan bixinayna afkiisa laga hayaa wasiirka arrimaha gudaha oo hadda waqtigaas ahaa oo hadda laga dhigay maxaa la yiraahdaa oo hadda ahaa maxaa la yiraahdaa amnigan hadda laga qaaday waxaad sheegaysaa cabdikariin xuseen guuleed sax ninkaasu ahaa ee cadde halkaas ma goodax baad sheegaysaa wasiirka arrintaa yidhi goodax arrintiisa waa tukal wasiirka hore amniga qaranka waa u soo socdaa tii goodax waa u soo socdaa taas waa tii dhacday 17 November 2013 waa arrintaas oo number 50 lagu gubay ninka ka jawaabay dowlad ahaan ka jawaabay wuxuu ahaa cabdikariin buu ahaa oo yiray anaga waa qirsannahay in ciidanka dowladda uu dhibaatadan geystay waa qirsannahay waana magdhoweyna magdhowgaas ma imaan annaga waxaan raacin war magdhowha iyo noo joogee war kuwii dadka laayay oo mataqaan xasuuqay maxaa la yiraahdaa maxaa wax looga qaban waayo maxaa looga qaban waayo maxaa loo xiri waayo maxaa loo ruqsan waayo maxaa loo bedeli waayo saddexda midna ma dhicin dadkii laayay tobaneey qof xasuuqay oo number 50 dhan dab qabad siiyay nin la qabtay oo la yiri dambaad gashay male meeshii lagama bedelin daraajo lagama qaadin halkii ay noo joogaan hadda hawsha siday ku wataan kow midda kale waxa waaye oo dowladda wado markaan ku leeyahay oo haddana mataqaana aan kuu sii sheegaya waxa weeye arrimahan maxaa la yiraahdaa markii sidaan u dhacday Soomaalida waxay tiraahdaa qosolba waa hiilo madaxweynihii oo jamhuuriyadda xasan sheekh iyo dhowr jeer ka hadlay arrimahan sida uga hadlayna waxay muujinaysaa inuu si cadaan ah arrinta uu raalli ugu yahay dagaalada siday u socdaan ciidamadan dagaal dhibaatada geysatay dhowr jeer mataqaana loo geeyey in meeshii laga soo bedelo
wuu diiday hal maruu ka hadlay wuxuu yidhi ma jiraan ciidamo maxaa la yidhahdaa meesha ka dagaalamo ma jiraan buu yidhi waa kadib markuu cabdikariim qirtay waay kadib cabdikariim markuu qirtay yuu madaxweyney leeyahay maba jiraan ciidamo waa kow mar kaleu hadlay wuxuu yidhi aniga waxaan sameeyey u yidhi cilmi baaraan sameeyey gobolka hoos shabeellaha hoos aan ka sameeyey waxaa ii soo baxday aan ogaaday in gobolkaas marwar weligiis laisku haysan jiray inuu yahay gobol weligiis laisku haysan jiray waa yaab arrin aada loola yaabo waa arrin waxba ka jirin gobolka shabeellaha hoose waa gobolka keli oo weligeed 200 sano kadib uusan dagaal beeleed ka dhicin ilaa 200 sano wixii ka dambeeyey shabeellaha hoose abadan kama dhicin laba beelo isqabsato oo dagaalada lama sheegin hataa muran uu dhex maro marka xasan sheekh waxaan ka codsanayaa inuu raadiyo 2 qabiil oo ka tirsan shabeellaha hoose oo ku dagaalamay shabeellaha hoose goormay ahayd ee goobtay ahayd hala weydiiyo hadduu keeno xaalba mataqaana bixin biimaal ahaan xaalaan bixinayna ma jirto wax ku dagaalamay 200 sano ka hor ee ugu dambeysay shabeellaha hoose oo lagu dagaalamo qabiiladii ku dagaalamino waqtigaas 200 sano ka hor way ka heshiiyeen heshiiska ay dhigteen ilaa hadeer shaqeeyo ilaa hadeer heshiiskii bay ku taagan yihiin weligood ma murmin marka waxa weeye madaxweynaha wuxuu cudur daarayaa dadkan dagaalamayo oo duulaanka soo qaaday uu cudur daarayaa markuu leeyahay mataqaana gobolka weligiis waa laisku haysan jirta cid isku haysan jirta ma jirto haddii cilmi baarista uu sameeyey madaxweynaha ay taa tahay madaxweyne waxaa loo cilmi baar waxaa loo sameeya in xaqiiq la helo marka natiijada uu ku gaaray oo mataqaana u soo baxday xaqiiqda way ka fog tahay aad bay uga fog tahay oo wax jira ma ahan laba mid wey inuusa samayn inuu iska leeyahay mataqaana maxaa la yidhaahdaa cilmi baaris uusan samaynin iyo inuu iska sheegayo iska dheh ay ka tahay marka aniga waxaan u sheegayaa ciddii dhegaysanayso dhan waxaan ka codsanayaa inay sheegaan ayaga hadday hayaan 2 beel oo shabeellaha hoose ku dhashay oo gobolkaas ku dagaalamay hadday jiraan waqti kasta ay ahaato waa wixii 200 sano hor ka dambeeyey hadday cid alle ciddii sheegto oo haysow ha sheegto geetanow wax badan ayaa sharaxday dadkan aad sheegayso oo ka soo jeeda gobollada dhexe waxgaradkooda iyo odayaashooduba sida ay saxaafadda marinayaan waxay caddaynayaan in gobolka la wada dego oo ay deegaan ahaan degan yihiin idinkuna dhibka aada wadaan dhibkanna ay ka dambeeyaan waa siday dhaheen tuhun ay qabaan ku wajahan inay dabka hurinayaan somaliland iyo puntland waa sida hadalka u dhigeen waxaad stuudiya noogu keentay bugaag fara badan oo taariikhda iyo deegaamada soomaaliyeed ka sheekeynaya maxaad ku caddaynaysaa dadkaasu inayna gobollada deegaan ahaan u deganayn oo ay duulaan ku yihiin si ay idin barakiciyaan horta waxaan jeclahay inaan ka jawaabo midii la yiri somaliland iyo puntland la yiri aan rabaa horta inaan hormariyo midaan horta somaliland maba degano maba noo dhawaba soomaalida waxay tiraa oodkaa dheer dhaxanka ama celiso maba noo dhawaba oo meel ay mataqaana hadda maxaa la yiraahdaa inaga soo gaareen iyo meel waxaan soo midna ma joogaan haddii mararka qaarkood afka ka hadleen oo ay yiraahdeen war dhibaatada gobolka ka socota hala daaya haday yiraahdeen Soomaaliya dhan aad tiri oo cid ka hartay ma jiro oo maxaa la yiraahdaa taas mataqaana maxaa la yiraahdaa wax tar ay noo yeelatay iyo faragelin ay soo samaysay iyo Soomaaliland ma jirto midda Puntland hadda Puntland ayagan mataqaana maxaa la yiraahdaa dhibaatadaas dhacday odayaal ka hadla mooyaane wax kale kama hayno waa jiraan odayaal mataqaana asal ahaan ka soo jeedo Puntland oo dhibsaday xasuuqa iyo dhibaatada ka socoto shabeellaha hoose waa jiraan laakiin faragelin ma jirto cadaynaysa mataqaana ma jirto wax ku hakisanta nin Allah oo islaama oo mataqaana muslim ah arintaas waa ka hadlay waana sheeg Soomaali kalimaan dad badan ka hadlay Soomaalida dhan odayaasha mataqaana wax aqal ah oo aqal leh way ka hadleen laakiin dhibaato la geysto dhibaatadaas ka hadleen oo yiraahdeen hal la joojiyo dhibaatadaas hal la joojiyo
madaxweyne ay la hadleen dowladda ay la hadleen shaksi ay la hadleen puntland iyo somaliland laakiin wax hadda mataqaana aniga gacan ciidan noo yimid iyo hub naloo keenay iyo ma jirto dadkaas xashaa kulula lama soo gaarin oo meesha kuma jiraan shaqna hoolna kuma laha kii tuhmayna mataqaana se waa niyad xumidiisa u taallaa gariiqan geetano gobolka shabeellada hoose bad buu leeyahay berri buu leeyahay waa gobol barwaaqo ah soomaali oo dhan buu ka badan yahay ka deegaan ahaan maxaad ku diidaysaan in laydinla dego oo waddankaas wax soo saarkiisa laydinla qaybsado oo laydinla yeesho oo laga mid noqdo maxaad ku diidaysaan ma diidin gobolka shabeellaha hoose haddaad tagto shabeellaha hoose haddaad tagto waxaad ka arkaysaa maxaa la yidhaha ganacsato meel kasta ka yimid oo mataqaana soomaaliya afarteeda gees ka yimid waxaad arkaysaa mataqaana maxaa la yidhaha beeraley oo mataqaana gobol meel walba ka yimid waxaad ka arkaysaa dad iska degano meel walba ka yimid waxaad ka arkaysaa xoolaale meel kale gobol kale ka soo guuray cid la hadasho iyo cid dhibaato u geysato midna ma jirto dadkaasay ka mid yihiin dadkaa waxay qabaan ay la qabaan wax u geysto iyo wax mataqaana la hadla ma jirto midda aan diidayna waxay tahay qabiil soo duulay oo na soo duldegay oo sida hore aan kuu iray kow qabs oo hore aan kuugu muujiyay wada qabsado horta maamulka degmooyinka oo dhan labo kii gobolka qabsado haddana uu sii xanqal taago mustaqbalka la soo socdo in gobolkan ay dhalan rogaan midda aan diidanahay aniga wataa in gobolkan in la dhalan rogaan diidanahay ma ahan biimaal keliya digilow gibil cadow intiina la degtoo dhan reer shabeellaha hoose oo dhan waxay ka soo horjeedaan gobolka in la dhalan rogo midda aan ka qaylinayna waa taas midda ay dowladda gadaal ka riixaysana waa taas in gobolkan la dhalan rogo waa hagaag 74 abaartii daba dheer dad fara badan oo soomaaliyeed oo xoolahoodii ay ku dhaafeen abaartii ayaa gobolka la soo dejiyay sida sablaale iyo meelo ka mid ah dhulkaas barwaaqada ahayd ee ku fiican dhinaca beeraha ma aydan ka dhiidhiyin maxaad hadda uga dhiidhiyaysaan in dalkaas la soo dego oo beeraha laga tabcado oo lagu noolaado ma diidin horta dadkan la soo raray laba nooc waa ku yimaadeen abaarna waa keenay waa lagu soo raray waa la keenay dagaaladii 77kiina waa lagu keenay waa yimaadeen kuwii dagaaladii 77 waxaa la soo dejiyey maxaa la yidhaahda jalalaqsi iyo waxaan u malaynayaa kon shabeellaha jubbada dhexe jubbada dhexena waa la dejiyey jalalaqsina waa la dejiyey kuwii abaartii daba dheer ayagana waxaa la soo dejiyey maxaa la yidhaha kurtuwaarey iyo sablaale kuwii dagaaladii ay ka soo qaxay oo la soo dejiyey jalalaqsi iyo maxaa la yidhaahda jubbada dhexe wax dhibaato kama imaanin oo mataqaana arrintooda waa la xaliyey waa iska xalasantay cid siba gooni u fariisato waa xalisan ma jirtee ayada sida isaga xalasay dadkii danta deegaankooda ay ku noqdeen kii meesha ku haran wuxuu ku milmay dadkii deganaa oo ma u xanqal taagan meel baan qabsanaya kaasaan qabsanaya kaasaan le uma xanqal taagan kii kale waaba iskana reerkiisa isaga noqday kuwii la soo dejiyey shabeellaha hoose oo u badan kuwii abaartii lagu soo dejiyey labay ahaayeen laba meel bay ka kala yimaadeen gobolada dhexe iyo nugaal iyo maxaa la yidhaahdaa iqaar iyo mataqaana iyo maxaa la yidhahdaa cayn iyo dhulkaasay u badnaayeen iyo kilinkii shanaad iyo mataqaana iyagana waxbaa laga keenay waxaa la soo dejiyey kurtuwaarey iyo sablaale beero waaweyna loo qabtay inkastoo aan lagu dhawaaqin qabiil hebel iyo qabiil hebel aan la kala dhihin laakiin waa la kala muujiyey beerihii waa la kala qaylbiyey beero weynaado ilaa 40,000 kilomitr hektar ah iyo ahaayeen waxaa u badnaa dadka ku mataqaanaa aan soo qabadsiiye afkayga aan soo qabadsiiye dadka daarood iyo habyaa u badnaa waxaas meesha la keeno beerihii dadkii la keenay oo meeshii mid 4 haddaan u qeybiy 3 daarood ay ahaayeen
maxaa yeelay gobollada ay ka yimaadeen badnaa beerihii saasaa loo qeybiyo 4 meel markii loo qeybiyo 3 dhinac baa loo qeybiyo halna dhinac baa loo qeybiyo waa yaalan beeri ilaa hadda dadkii yimid kuwii ka yimid mataqaanaa maxaa la klinika shanaad iyo dhinaca kale iyo kulli adigaba sidaan ku iri wax naqday iyo wax dadkii ku dhex milmay dhibaatana aan ku haynin ay noqdeen laakiin waxaa hadda mataqaanaa dhibaatada keena hadda dhibaato ay ka taagan tahay waa kuwii gobolka mudug ka yimid oo meeshii la dejiyey aan ku ekaanin oo sidaan hore ku iri gobolkii dhan ku fiday oo gobolkii dhan uu xanqaltaagay waa kuwaas kuwa mataqaana aan diidanahay annaga mid mataqaana nagu dhex milmay oo aan ka guursanay mise naga guursaday mise beerna la fashay mise xoolna la daaqsaday ma diidana midda aan diidanahay wax weeye kii mataqaana nagu oo aan soo dejino nagu jisaarayo mataqaana xoolaheennii iyo deegaankeenni isu xanqaltaagayo iyo maamulkeennii iyo xukunkeenni waa kaa midka aan diidana aw hagaag agreeqan getanow dhowaan dowladda federaalka ee dalka soomaaliya waxa ay cilaamisay ogolaatay dowlad goboleed ka kooban 3 gobol oo shabeellada hoose ay ka mid tahay Baay iyo Bakool ka deegaan ahaan mowqifkiinu muxuu yahay ka deegaan ahaan waa okay raalli baan ka nahay 3 gobol oo la israaciyay waa kuwa keliya isqaban kari shabeellaha hoose san hor marka hore inta ka hor waan ka hadlay jubbada hoose iyo 2 gobol labadaba midkii la raaciyo waa mataqaana waa ku bilan yahay waa mataqaana isqabanayaan waa dad isku deegaan oo maxaa la yiraahdaa isku dhaqan ah oo dad mataqaana isdhexgalay waayo waana raalli baan ka nahay 3 gobol oo meesha ka dhashay mataqaana waa okay waa tilaabada keli oo aan dowladda ku mataqaana ku ayidsanahay inkastoo dowladdii nafteeda mataqaana cagajiid ku tahay haddana mataqaana ay lugta hayso maxaa la yiraahdaa maamulka iyo dhismahan ay hadda ay ku dhawaaqday aniga raalli baan ka nahay aan ka nahay gobol 3 gobol inay dhismaan raalli baan ka nahay wahagaag agariiqan waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka dad fara badan oo Soomaalida wax garada iyo mas'uuliyiinta dowladda intuba waa ku daawanayaan maxay tahay fariintaada ku wajahan dagaalkaas ka soo cusboonaaday ee ka soconaya gobolka shabeellada hoose waxa weeye horta fariinkii waxa weeye in la qaado tilaabo kasta oo dagaaladaas lagu joojin karo nin kastoo shakhsi kastoo mas'uuliyadiisa intay la agtahay waa in tilaabada ku habboon inuu ka qaado in mataqaana dagaaladaas ay joogsadaan si caadilnimo ah loo qaado tilaabada iyay noqonin maxaa la yiraahdaa hiilo inta horta dagaalada waxbada waa hiilo waxaa la yiraahdaa gardarro garab og ma baxdo dagaaladan waxay ku socdaan waa gardarro garab og dad qolo gardarro ku soo duulay iyo qolo gardarro la garab taagan qolada la garab tarada la taagan waxa uu nooga daran madaxda sare ee dowladda inooga daran sidaan hore u sheegay madaxda sare ee dowladda waa inay ka baxaan ka tanaasulaan fikradoodii ay wateen oo caddaan oo aan nala gambanin bannaankay taalla anaga waan u jeednaa madaxweynahan ka aragnaa markii la yiraahdo mataqaana dagaaladan waxa gobol walbo waa ka meel walba waa ka socdaan oo kule dagaaladan hiiraan ay ka socdaan gobollada dhexdeed ka socdaan intay ka socdaan yuu leeyahay laakiin gobollada hadda uu sheegay madaxweynaha dagaalada ka socda iyo dagaalada shabeellaha hoose isma laha isku qadiyad ma aha shabeellaha hoose dagaalada ka socdo waa boob aan ku boobo aan ku duldego aan ku dilo aan ku mataqaana maxaa la yiraahdaa aan ku yahaaneeyo aan mataqaana maxaa aan kaa sarreeyo aan ku adeegsado waxa ka socdo waxa laakiin gobollada kale qabiilo walaalo ah mise deegaan isku deegaan yaa ku dagaalama 2 beri ka hor hobya lagu dagaalamay mataqaana 2 qabiilo mataqaana isku beela waa wax dhici karo dhuusamareeb ay ka dhaceen 2 beelo daris waa wax ka dhici karaan meel walba waa ka dhici karaan laakiin waa dad deegaan ugu dhaxeeyo laakiin shabeellaha hoose dagaalada ka socdo ma aha deegaan qabiilo deegaan oo walaa oo deegaan oo daris ah oo wada dega ma aha waa qabiil soo duulay oo maxaa la yiraahdaa meesha yimid inta waxaan ku hayaa buugaag badan hayaa
buugan ka soo qabo abtalyaano ku qoran yahay waxaa ku qoran la città di Marca regione di Bimalo macnaheedu yahay waxa weeye magaalada Marka waa deegaanka Bimalo waxaa la qoray 1910 104 sano ka hor wuxuu sheegayaa Marka inay tahay deegaan Bimalo waxaa ku lifaaqan maab wada cadaynayo beelaha Soomaaliya oo dhan say u degaan Soomaaliya oo dhan say u degaan Soomaaliya oo dhan say u kala degaan u sheegay marka waxaad ka arkaysaa maabkaas shabeellaha hoose cidda degan waxaad ku maabkaasaad ka arkaysaa maabka kuu muujinayo marka reeraha sheeganayow maba ka soo dhow maba ku degana meesha maxaa la yidhaahda ma degana wakaa meesha mataqaana wax maxaa la yidhaahda buugga kan isagana aftalyaano ku qoran yahay wuxuu waxa weeye l'Italian in Africa Orientale talyaaniga markay soo galeen afrikada maxaa la yidhaahdaa afrikada bari geeska afrika markay soo galeen wuxuu ka sheekeynayaa inta talyaaniga kula dagaalantay kow buuggan wuxuu ka sheekeynayaa cidda kula dagaalantay talyaani africa Abyssinia Ethiopia ama Abyssinia la dhihi jiray Ethiopia iyo Bimal iyo Abyssinia talyaani kula dagaalamay buuggana ku qoranta iyo ingiriiska yaa la dagaalamay in Cabdul Xasan saddexdaas uu leeyahay saddexdaas dhaqdhaqaaq military maxalliga mustacmarka ingiriiska iyo talyaani saddexdaas kala hortimid Ethiopia Bimal in Cabdul Xasan kow maxaa la yiraahdaa kuma qorno maxaa qabiil kale kuma qorno haba yaraatay kuma qorno in Cabdul Xasan iyo beelihii watay maxaa la yiraahdaa Ethiopia say u dhantahay iyo Bimal kan wax weeye waxa qoran script colonial waxa weeye qoraaladii ay qoreen mustacmarka uu qoray waay qoraaladii mustacmarka waxaa ku qoran sidii loo kala degan deegaanada Soomaaliya sidii loo kala degan maxay kala yihiin dabeecada beelooyinka dego maxay yihiin beel walba uu sheegaya marka intaas mataqaana halkan ku qoran waa iska caddahay mataqaana maxaa la yiraahdaa buuggan kulli buug walbo maxaa la yiraahdaa waa la helayaa talyaaniga laga helayaa meel walba laga helayaa waa la raadin karaa magacooda mataqaana waa la heli karaa meesha rabtaad ka heli kartaan ma lacag boy hal gato waa maraga sheegayo mataqaana deegaanka shabeellaha hoose sidii loo degan kow maxaa la yiraahdaa annaga marna ma diidan marna ma jirto nin ganacsada ah nin beeraaliye nin xoolaaliye nin iska degan oo qabiil kale ka tirsan beel kale ka tirsan oo ka sheegtay reer shabeellaha hoose ma jiro oo waa lii mataqaana takoore yiri ma jiro waa lii dhacay jira ma jiro ma diidini laakiin midda aan diidanahay waxa weeye in beelo kale halkan la soo geliyo madaxweynaha wuxuu yiri mataqaana maxaa la yiraahdaa goboladan maxaa la yiraahdaa dagaalada dadka wado maxaa la yiraahdaa waa dad maxaa la yiraahdaa oo gardaran wasiirka arrimaha gudaha haddeer mataqaana gowdax wuxuu yiri dadkan meesha degan oo dadkan meesha oo dagaalamaya deegaanka ma ahan waa al-shabaab hadduu leeyahay hadda waa maalmo ka hor wey biimaalkii dagaalamayay wax laga dhigayaa al-shabaab marka maxay ku tusaysaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu leeyahay wax dagaalamaya ma ahan biimaalo waa al-shabaab madaxweynihii muxuu leeyahay waa goboladan mataqaana weligooda la isku haysan jiro gobolada dagaal haddiina meel walba way ka socdaan waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa markaad dhuuxdo ood dhegaysato in ay tahay hiilo lala hiilanayo beelahan mataqaana kusoo guuray oo kusoo duulay gobolka shabeellaha hoose marka annaga waxaan leeyahay horta artaas ha joogsato dowladdii candhuuftooda dib ha u noqdo
ha ogaato inay dowlad tahay ha ogaato maxaa la yiraahdaa inta looga baahan dowladda maxaa la meesha looga baahan gaar ahaan waxaan jecelahay inaan la hadlo xasan sheekh maxamuud aan rabaa inaan la hadlo waxaan leeyahay wax weeye in maxaa la yiraahdaa cadaalada loo baahan yahay xasanow adduunkan sida ii muuqato horta waxaad lugaha kula jirtaa ceeb inta hadda aan sheegay mataqaanaa inka badan yaa jiro dad sheegayaa jiro wax xaqiiqa jiro horta meesha ceebaa jirto aakhirina waxaa kugu sugaayo maxaa la yiraahdaa masaakiintii ay laayeen maxaa la yiraahdaa maatidii ay laayeen ciidamadii aad shabeellaha hoose u dirtay maatidii ay laayeen ciidamadaadii kuwii ay mataqaana u hiilanayeen ciidamadaadii shabeellaha hoose aad u dirtay wixii ay dhibaato ay geysteen magaalooyinkii ay gubeen guryihii ay gubeen ceelashii ay burburiyeen aakhir ay kaaga horeeyaan kow maxaa la yiraahdaa midda kale waxa weeye annaga qabiimaal ahaan qabiil aan la dagaalanay oo aan mataqaana qore u qaadanay ma jiro marka maba fahamsani dadkan beeshaan soo duusha garab taagan annaga xabaadle weligeyna lama dagaalamin mudulood weligeyna lama dagaalamin maxaa la yiraahdaa qolooyinka kaloo la garab socdo weligeyna lama dagaalamin dagaalnama dhex marin hiiladan halkan dadkan ay lasoo garab socdaan waa arrin gardarro ah gardarradaasna mataqaana annaga ma qaadanayno yaanala maagin cidna ma maagayno cid aana maagna ma rabno laakiin hana laga daayo maagidna la maagayo oo sida gardarrada noolagu soo duulayo midda kale waxa weye kuwaan hadda isgarabaysanayo ciddaan hadda ku soo duushay shabeellaha hoose oo magac weyn oo mataqaana horyaalka u ah deegaanka oo duulaankan ka socdo shabeellaha hoose kuwa horyaalka u ah horaan loo ogyahay waxa ay sameeyeen xamaray duulaan ku qaadeen waxay isku dayeen inay xamar ka qaadaan kuwa majorityda ku ah xamar waa la ogyahay waa la wada xasuusan yahay in reer mudulood cad cagaaran loo sameeyo kaaraan lagu xirxiray oo kaaraan lagu mataqaana albaab ahaan looga soo xiray soomaalida waxay tiraahdaa waxaa gabadhii heysasay waxay tiri umal baa ilowda araada soo maray warya ha iloobina dhibaatooyinkaas dhacay ha iloobina mataqaana maxaa la yiraahdaa beledweyn in lagu duulay waa isla qabiilkan way isla beeshaan waay baydhabo in lagu duulay waa isla beeshaan waay kismaayo in lagu duulay waa isla beeshaan waay maxaa la yiraahdaa haddaan hoos u soo noqdo harar yaale maalintii ka dhaceysa mataqaana kuweyd yare waxa geystay waa mataqaana waa beeshaan waay waxaasoo dhan waa xasuuq la geystay waay maanta waxa yaab leh oo aad aan ula yaabanahay kuwii dhibaatadaas loo geystay iyo kuwii dhibaatada u geystay maanta mataqaana hiilo lasoo garab istaagan aniga nagu soo socdo waxaan la yaabanaha waay ma maskaxdan shaqaynayn sidee tahay waaba la yaabana waxaan rabaa marka mataqaana taa waxaan rabaa inaan la hadlo hadda beeshaan horyaalka u ah dagaalkan socdo yaan faraan rabaa inaan faro war maskaxda ha adeegto maskaxda ha la adeegsado qalbiyaan la adeegsanin aniga qalbigeyga wuxuu ii sheegi karaa inaan mataqaana dayaxa soo qabsado laakiin maskaxda waa inay tusto inay ii suuragelinin gabagabada barnaamijka ayaa waxaanu la socodsiinaynaa cidalla ciddii danaynaysa in ay ka hadasho waxyaabaha aanu ku soo qaadnay barnaamijkan iyo eedeymaha uu soo jeediyey garyaqaankuba in ay u furan tahay in ay soo booqdaan oo inoogu yimaadaan stuudiyaha telefishinka caalamiga ee Somali Channel ee magaalada Toronto oo dalka Canada annagoo ujeedadeennaduna ay tahay bal inaanu guud ahaanba dadka Soomaaliyeed la socodsiino dhibaatooyinka dagaalka sokeeye ee soo noqnoqonaya waxaanu mar labaad ku celinaynaa cid alla ciddii jecel in ay araahdooda ka dhiibato in aanu diyaar u nahay inaanu u soo gudbino guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed barnaamij la mid ah intaanu isugu iman doonana bahda Somali Channel ee dalka Canada ayaa waxay idin leeyihiin oo idinkaga tagayaan Ramadaan Kariim is arag dambe oo xiiso leh